soo dhawaada dhamaan saaxiibayaal mowduuca muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa ama aan idinku soo gudbin doonaa application cusub applicationkaas oo idinka saacidi doona waxyaabo fara badan aadna waxa uu saacidi doona dadkii wadanka jooga ama Soomaaliya jooga kuwaas oo inta badan moobiladooda laga dhaco ama wadooyinka looga dhaco applicationkan waxaan ugu talagalay dad fara badan oo daawada inay kaga faa'iideystaan ama xal ay ugu helaan waxyaabaha taleefanadooda laga dhacayo waxaan wada ognahay in wadanka aysan qofka mobilka laga dhaco kale uusan tixraacin ama waxba uusan dib u raacin muuqaalkan ina sameeyo sababtiisana waxa iska leh Ismaaciil Xaaji hadii aad taqaanaan muuqaal uu soo galiyo oo taleefan laga dhacayo kale uu leeyahay 12 Pro Max laga dhacay waana ka sabrayo kale marka dhalinyaro fara badan oo laga dhaco ay jiraan waana ka warqabaa marka muuqaalkan waxa ugu talagalay ama aan rabaa inaan kugu soo gudbiyo wax application idinka saacidi doona taleefankiina meel walba uu ku sugan yahay oo aad ku ogaan kartid waxaan rabaa inaan sharaxaad guud kaaga bixiyo oo aad si fiican uga fahmi kartid sidoo kale channelkan muddo fara badan muuqaal ma aan soo galin haatan dib u soo laabtay oo muuqaalada waan soo gali karaa inta aan muuqaalada aan channelkan soo galinayn waxa jiray channel kale oo yar oo Ibros on time ay ku qoran tahay kaas oo aan muuqaalada kale ku soo gudbin jiray oo aan halkan ku soo gudbin jiray inkastoo hadaba aan hawada ku soo laabanay muuqaaladan aan dib u bilaaway marka hadii ay tahay daawashada kugu horeysay channelka waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto saaxiibadan aad la wadaagto si iyagana wax ugu faa'iidaan muuqaaladan halkan ku soo gudbinay inta badan aan ugu hadalno waxyaabaha dhalinyarta ku saabsan hadii aan leed applicationada website-yada iyo wax walba application ama ku saabsan wax walba markaas xiligaas dadka ay u baahan yihiin marka hadda waxa gudagaleynaa mowduuceena ama aan ku soo laabaneynaa waxaan shirjin gareyneynaa applicationka find device leedahay waa kana applicationka waa arki kartaa magac ahaan waxa ku qoran applicationka Google Find My Device ku qoran waxaad degsatay 100 milyan oo qofood kuwaas oo ka warqaba applicationkan waxa uu qabto kagana faa'iideysta hadda waxa reviewer ah 1 milyan wax ku dhow 900,000 oo qofood reviewer ah dad qaar oo Soomaali ah inay yaqaanaan waa laga yaabaa laakiin dadka intooda badan ma yaqaanaan hadii ay yaqaanaan inay isticmaalaan laga yaabaa ama aysan ku baraarugsaneen ama Soomaaliya aysan ka jirin location ay isdhahaan laakiin Soomaali location waa uu ka jira xil walba mobilkaada meeshuu yaalo waad ogaan kartaa ana hadda applicationka almost waa uu degsan yahay marka waa ku dhufanayna oo open leenahay open leenahay hadda wuxuu ku weydiinayaa wuxuu ku weydiinayaa inaad gelisid passwordkaada marka passwordkayga gelinaa adinka waa ka qaranayaa Gmail ka hadeertan passwordkayga waa soo galiyay uuna soo kacay waa arki kartaa marka applicationka passwordkayga soo galiyay si toos wuxuu keenayaa khariirada ama locationka wuxuuna ii soo sheegi doonaa locationkayga isla markaa uu raadinayaa halka aad ku sugan uu soo sheegi doonaa marka halkaas markuu soo sheego oo aad raacdo wuxuu ku geey doonaa halka aad joogtid ama halka aad joogtid Gmailkan waa Gmail aad isticmaalayo oo aan rabo inaan wax idinku tuso meesha aad joogtid oo ku geenaya waa u raacaya aad meesha u fogtaa waa dhaweynaysa internetkaada duu fiican aad u dhawaanaya mar walba xilli walba oo aad Gmailka kicisan waa uu kacaya marka qaabkee loo isticmaalaa hadeertan oo kale Play Store marka dhahay cod ay yeeri doona waxa arki kartaa in shaashada uu soo qabtay cod oo ringing ah marka waa uu qeylinayaa hadii taleefanku ka maqan yahay kale meeshan waxay ka saacideysaa in cod ku isticmaashid security device kana waxa u isticmaali kartaa inaad gelisid waxyaabo lock screen kaas message kaas oo kale iyo phone number kaaga waxyaabo far badan uu ku soo dirayaa marka hadii aad u baahan tahay ama taleefankaada laga qaato isku day mar walba taleefankaada Gmail inaad ka kiciso Gmailkaas oo aad ka taqaanid passwordkiisa iyo wixiisa oo dhan hadii Gmailka aad taqaanid passwordkiisana aad taqaanid taleefanka laga qaato isla waqtigaas laga qaatay oo kale qof saaxiibka ah taleefankiisa ka qaadi kartaa kadibna waxa tagaysaa meesha hadda Gmailka aad ka soo kicinayo oo passwordka gelinayo Gmailka marka halkaas gelisid oo passwordkiisa aad gelisid wuxuu ku tusayaa goob walba uu taleefankaada ku sugan yahay si toosna waxa u heli doontaa taleefan
telefonkaada waliba ayadoo san cidna kaaga qaadan marka waa faa'iido ama maxaa ahayta waxyaabo aad u isticmaali kartaan waxaana filayaa inaad wax badan kaga faa'iidi doontaan muuqaalkan isticmaali doontaan location oo mar walba u furi doontaan locationka telefonkiina xilliga maxaa ahayta aad aadaysaan oo kale magaalada hadda waxaad arki kartaa waxyaabo fara badan oo halkaan ah wili hadeertaan si toos oo meesha ku tusaaya oo meesha ay joogo wadada joogo xaafadii oo marka dambe ku geenaya dadka qaar waxa laga yaabaa inay isdhahaan Soomaali location ma lahan ama location ma soo qabanayo wadooyinka warshadaha wadooyinka oo dhan waa uu kala yaqaanaa haddii aad device-kan isticmaashana mar walba waxaa telefonkaada ku helaysaa si fudud marka dhalinyaro maadaama aad joogtaan dal maxaa ay tahay haddii telefonka laga dhaco kale aad si dhibaato ama maxaa ay tahay aadan telefon ayaan heli karin oo kale marka application-kan waxyaabahaas uu idinka caawinaya waxaana filayaa inaad wax badan kaga faa'iideysan kartaan muuqaalkaygana intaana kusoo koobaya haddii ay tahay daawashada kugu horeysay channelka waxaa tahay saaxiibkan cusub oo aan kusoo dhaweynaynaa waxaana ka codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto muuqaalkana aad like saarto saaxiibadana aad la wadaagto si iyagana wax ugu faa'iidaan muuqaalada aan halka kusoo gudbinay inta badan aan uga hadalno waxyaabaha dhalinyarta ku saabsan waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan